وهبينمو 4 خميس أي سوق ليسو تاريخ دون وشن بشا سيديداد لبكون يلحيا لباتن ورر مهمة أيا إنو سو سعودا ويكوشران مقالة لندن برتن كيدا أو ضد مرقي نكتا لغا ساري إيو ورر كالي هسياتي وحينو كوب الله بينا حيسادا إيو علادا أولا حيسا حوتيين تا إيو سعوديغا أو ور عصبو كسو كورني هذا بحوتي أيا عاو ور سو ساري intayna warka xootiga u galin waxaan dib idinkugu celinayaa inaan maanta barnaamijyadeedii ku soo qaatay in ay u socdaan barito Saudi Arabia labada nin ee ugu sareysa Pakistan ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidamada waxaana jira heshiis difaac oo u dhaxeeya Sacuudiga iyo Pakistan haddii labada dal midkood la weeraro kan kale inuu difaacayo dagaalka galayo haddaba Sacuudiga xootiga ayuu dartiis ayuu ugu yeeray labada nin ee ugu sareysa Pakistan haddaba Pakistan ma gali doontaa dagaalka mise dhanka Iiraan ay ka soo mari doontaa oo arinta waa la dejin doonaa oo la xalin doonaa oo arki doonaa barito laakiin xootiga wuxuu u jeedaa waxa socda wuu sii sheegaya wuxuu leeyahay Pakistan ma naga kiin celin karo anaka Maraykan aan qaramsanay oo gacmaha taagay meeshan ka cararay waxaan idin sheegaynaa caaw war kale soo saaray xootiga oo fiirsada Sacuudiga baxar ku jira dhiiqo lagu halan galay Sacuudiga waxa leeyahay waa ku ognahay maraakiibtaada waad kala carartay baabal mandab dhanka iyo Masar iyo dhulka inaa sii marsiisato ayaa rabtaa iyo meelaha badda cas dhankaas inaa ka isticmaashay waa kaaga daba imaanayna وباب المندب حوتيا باب المندب كان لما سو مري كرات هادو سعودي اسك دايو حق اسك ادي مع ودبا سقطا ميا سعودي ما كهرين دو تاغي maxaa anaga marka hore afaareen oo soo gashay wallahi wareera taay hadaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay wargeyska la yiraahdo al-Quds ayaa wuxuu leeyahay xuuthiyiinta waxay ku dhawaaqeen caaw inay ballaariyeen go'doominta ay ku hayaan Sacuudiga waxaan gaarsiinay leeyihiin ilaa waqooyiga badda cas macnaha shimaal bahrul ahmar waa dhanka iyo Masar iyo kanaal Suways iyo marka loo socdo dhulkaas baraagiibtii meesha ay ula qaxday Sacuudiga oo meesha aaday ayaan ka daba tageynay leeyahay warnimaka Sacuudiga waa ka qeylisi waa ka yaabiyay حين باكستان وعو أما عد كلا وعمحانا لك عنا أنك سعودي ويابنياي ساكن مركبا نكتة لك ساري شالي قرومات ديارة دينا لك قراعي هذا مراكيب تيسي لن كان وطيور حق وكلبحا يا وحليوها كادة بتغينا حسارك أما قودو من تأكوهين وابلارينينا توسيعك سبيرينا وابلارينينا ميل أكو بحسكرت مالي حقا هداءاتو نكت هلكن نكت ماشا كوريغاغا فردي سعودي عندها كسوهاري بركان ولا يابيا كل بريتو اسغا يا باكستان بركاي شيران بل وحي كسو بخا aan aragno bal xaalku ma fiicna xaaladu ma Sacuudiga xaalka kuma fiicna waaya qodobka halkaas ay kaga gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ah ee caawa saaran warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa Ingiriiska waxa leeyahay haweeney dhowr iyo 40 sano jirta ayaa bartamaha magaalada London waxa ay nagta kaga saartay dad halka maray wala yaab hadaba warbixino kala duwan oo warbaahinta ay ka qoreen waxa la leeyahay 4 qof ayay si xun u dhaawacday iyadoo isticmaalaysay toorey ayay ku weerartay waxa soo kale la sheegayaa weerarku inuu dhacay arbacada maanta waxaana la sheegay saacadu inay ahayd 12 iyo 7 daqiiqo xilliga magaalada London ee duhurkii deegaanka uu ka dhacay waxa la yiraahdaa Covent Garden ayaa la yiraahdaa waa bartamaha magaalada halkaas oo booliiska ay tageen haweeney 47 sano jira ayaa halka lagu qabtay oo dadka nagta kaga saartay haddaba dadka ay dhaawacday waxa la sheegay daadoodu inay isugu jirtay 34 39 42 iyo 52 jir
واي هويني امتحان يا بابا مشكلة يا هيد هذا وقت كتلفونك وحكو جرا محمد نور قليمو oo ah falanqeeye siyaasadda caalamka iyo arrimaha UK dhowr marna barnaamijka nagala qayb qaatay meesha shilku ka dhacay meel ku dhow ayuu ku sugnaa Qalimow duhurkii maanta markii ay wax dhacayeen Qalimow sidee wax u dhaceen nooga waran nadar maanta waxa dhacay dhacdo mindiyo la dhacay dad shacab ah oo central London u soo baxay in iska shopping gareystaan waxaan la dhacday qof dumar oo dhowr iyo 40 jira ayaa waxay dhaawacday mindiyo ku dhaawacday dad maaragtay magaalada wax ka joogay oo shopping iska soo baxay sida doctor iskuulada xiran dadku sida badan magaalada u soo baxaan waliba centerka aad ayaa la isugu yimaadaa kabacdina markii arinta dhacday booliska loo yeeray booliska ayaa aad ula tacaalay in qoftaas ay maaragtay midida ka qabtaan ay dhaawacyada dadka u geysanayso oo iyadoo aan dadka uga abiyeelay qofka iyo noocu yahay qof walba ay ka daba gaarto ay ka daba tagto ay midida la dhacaysay ayaa markii dambe booliska la tacaaleen ay halkaas maaragtay wala wareey midida iyadana arrestaareen ay xireen marka dhacdadaas ayaa central London ka dhacday meel la yiraahdo Covent Garden oo magaalada bartankeeda arintaas waa arin maaragtay kulliyeeto ilaa hadda boolisku warbixin fiican oo ku tafaasiil ma ayna soo saarin laakiin sida wararka la leeyahay waxay soo saari doonaan ay yiraahdeen warbixin ku saabsan dhacdadaas laakiin wargeysyada isida shaashadaha iyo wariyaasha iyo dadka goobjooga ay ku warqabayaan waxa la leeyahay qof weyn ay ahayd waana qof dumar ilaa hadda magaceeda lama hayo marka arintaas ayaa ka dhacday London oo arin uguba oo dumar mindi intay qaadato dadka magaalada dhinac kala marta waataay Qalimow ma jira wax wara oo rasmi ah oo dhanka dawladda ilaa hadda ka soo baxay ilaa hadda dawladdu waxay soo saartay runtii oo daqadihii ugu dambeeyay ay sheegeen in ay tahay qof dumara oo 47 jira ilaa haddana xaaladeeda aan la ogeyn sababta ku kaliftay iyo arrimahaas waxay ka damacsanayd inay argagixis tahay arrin argagixisa inay wax kala tahay inay iyada ay kaliya ku kooban tahay arrintan siday tahayba marka ilaa iyo hadda dadkii meesha ku dhaawacmay qaar baa helicopter lagu qaaday oo meesha helicopter ayaa ku soo degtay si degdeg loo gaarsiiyay dadka dhaawacnay isbitaalada u gaarka xaaladaha aad u adag sidaas oo kale la geeyo goobta ay ku soo degtay oo qaar baa helicopter lagu qaaday ilaa haddana meesha way xiran tahay booliis badan ayaa jooga baaris badanna way socotaa kulli dad badan oo arkay wixii dhacay iyo waraysiyo iyo boolisku waxay wadaan inay macluumaad badan ka ururiyaan dadka isa wax u dhaceen kulli ugu dambeynna ay markaa kadib ay noo soo saari doonaan si wax u dhaceen ulijeedkeedu wuxuu ahaa ciday ka socotay haday kaligeed ahayd haday urur ay maaragtay ay ka tirsanayd iyo hadii kale iyo waxay tahayba in argagixisata inay wax alla wixii markaa ku kalifay iyaga ay noo sheegi doonaan marka warbixintaas ay ururinayaan oo dadka meesha goobjooga ah witnesska waana sugaynaa bal warbixin fiican oo bitafaasiila inay noo soo saari doonaan si aan u ogaano magaceedana kulliba iyagaa sheegi doona maadaama qof qaangaara ay tahay xaq waxay u leeyihin magaceedana xitaa inay sheegaan marka ilaa hadda magaceeda lama hayo warbixinta waxbaa ka dhiman laakiin muddo yaroo gaaban waxaan jecelnaha in media ay noo soo gelin doonaan waxa arintaas ay tahay iyo waxa ka dambeeyay iyo ujeedkeeda aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye siyaasadda caalamka iyo midda UK una noo warramay isagoo jooga magaalada London waa maadsantahay Qalimow wixii kale warar arrimaha ku soo kordha barnaamijyada dambe ayaanu idinkula wadaagi doonaa waa tahay qodobka u dambeeya oo barnaamijka marka maxaynu ku soo qaadanaynaa maraykanka isagoon la baryin cunaqabateyn iyo qaad la dhihin war waa ku baryeena la dhihin ayay waxay la soo boodeen caaw 3 shirkadood oo markii hore aan cunaqabateyn u saarnay inay xiriir la leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaan hadda ka qaadnay cunaqabateyn yaa idin ka qaada maya waxaan fursad siinaynaa wada hadalka warnaba kaadu inay maraan
marinbiyoodka hormus oo la furo wixii iiraan sheegaysaaba soo baxaya nimankan hub iyo waxbay rabaan inay meesha gudbistaan wax kasta oo ay ku sirsiranayaan waa idiin dayna shirkadihii waa fasaxnay leeyihiin yab waa la yaabay haddaba marka aan idin tuso wararka soo kordhay washington waxay qaaday cunaqabatayntii ay saartay shirkado iyo hay-ado xiriir la leh ciidanka ilaalada kacaanka iiraan haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay waaxda maaliyadda maraykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqday in la qaadayo cunaqabataynta 3 hay-adood oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka ee iiraan iyadoo la filayo heshiiska siyaasadeed in arrintan loo horseedi doono fursad lagu furo marinbiyoodka hormus faahfaahin lagu daabacay bogga internetka ee waaxda maaliyadda maraykanka ayaa waxay muujinaysaa in maraykanka uu qaaday cunaqabataynta lala xiriirinayay shirkadahaas haddaba sida uu sheegay telefishinka fox news oo lasoo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan maraykanka ayaa la sheegay shirkadaha laga qaaday xayiraada inay ku jirto shirkad diyaaradeed oo la yiraahdo Fly Baghdad oo ka dhisan dalka Ciraaq taasoo horay loo sheegay inay xiriir la leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan qaybtiisa la yiraahdo Al-Quds way marka nimankan maraykanka waa la yaabarahay adikuna bal fikirkiina soo dhiibta warriba ku baxay aayeen cunaqabataynta waa ka qaadnay shirkadaha waa ka Iiraan ayaa bamba wax waran soo saaray Iiraan waxa leedahay ogaal cunaqabatayntii shalay waa saarbaata yaa beriyay yaa dhahay naga qaado maxay rabaan nimankan maxay u socdaan haddaba maxay idin la tahay adikuna bal soo qora warkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkayga caawa